Sidoo kale waxaan ka hadli doonaa xaaladii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya Eritrea iyo dowladda Ethiopia, xaalad oo aad u soo cuslaanaysa iyo dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay dhexdhexaadinayso ciidamada dagaalkaasi u dhexeeya Ethiopia iyo Eritrea. Arrintaas waa falqeyn doonaa. Waxaan kaloo falqeyn doonaa Somaliland oo soo bandhigtay ciidamada ugu tirada badnaa ayadoo sheegtana ciidamo bad ah inay dowladda Ingiriiska u tababarayso. Arrintaasna waa falqeyn doonaa. Waxaan kaloo falqeyn doonaa xaaladii ugu dambeeyay koonfurta Soomaaliya oo dagaalka kooxda AS aan loo kala harin isla markaana ciidamada ugu tirada badnaa ee laga qaaday magaalada Muqdisho. Barnaamij Shargareey meel fog gaarsiiyay waxaan ku hormaraynaa dowladaha Eritrea iyo Ethiopia waa tii muddooyinkii lasoo dhaafay dagaal u dhexeeyay kadibna xiisadooda cirka ay sii aadaysay hadallo isku turtuura iyo eedamo tiro badan iyo ciidamo xuduudaha lagu daabulo ayaa markaasi socotay. Waa tii hanjabaad la isku dilay hawada la soo marinay ugu dambeyntii dowladda Eritrea xuduudkeedu way xiratay ciidamo tiro badanna waa keentay kuwo kale cusubna tababar u soo xirtay oo sida la sheegay dhowr iyo 20,000 oo ciidan ah ayaa hadda tababar u soo xirtay. Xaaladdu marka ma sahlano, xiisad dagaal, diyaar garow iyo hanjabaado ayaa jiray. Dhibkana waxaa bilaabay dowladda Ethiopia oo sheegtay in badda cas ay tagi doonto, gaar ahaan dekedda Casab in ay lahaan jirtay boorar ay ku qoran yihiin Welcome to Casab Ethiopia ayay markaasi warbaahinta ay ku baahiyeen. Taas ayaan culays ay keentay dowladda markaasi Eritrea waxay bilowday hub aruursi, diyaar garow, saanad military inay soo iibsato, inay markaasi saaxiibtinimo la samaysato dowlado badan oo Masar ay ka mid tahay iyo Sacuudiga. Halkaas markay xaaladdu marayso hub aruursigina uu socdo waxaa bilaabatay in dowladda Ethiopia hanjabaadeeda ay sii kordhiso, ay tiraahdo hub ayaan sameynaa, warshadaan leenahay, saanad military soo bandhigto, ay tiraahdo 1 milyan 2 milyan oo ciidan aan tababarnay, dagaal baan diyaar u nahay. Marka arrintii isku soo wada doobad xaaladdu cirka gashay, hanjabaadihiina weli waa socdaan. Markii dambe xiisadii halkaas markay gaartay waxaa la sheegay in dowladaha caalamku ay leeyihiin warjaan la dagaalamin, saacadan dagaal yaa la gelin, xaalad hala qaboojiyo. Walow dowladaha qaar ay gadaal ka riixayaan oo dagaalka inuu dhacay doonayaan sida Imaaraadka Carabta oo kaleeto waxay doonayaan in dagaal uu dhaco oo waxay leeyihiin dekedaha ee markaas Ethiopia qabsan doonto annaga maamuli doono, annaga dhisi doono. Halkaasna waxaan ka raadinaynaa shilimaadka meel xun ka galay Imaaraadka. Marka Soomaaliya waa lugaha kula jirtay dheesay annaguna dekedii badan ka rabnaa oo saldhigan ka rabnaa military waxyaabihii wata is dhexmarayeen. Marka labada qolo loo bira tumanay waa Soomaaliya iyo Eritrea. Ugu dambeyntii Soomaaliya waxay tiri wada hadal aan la galnay deked ganacsiyan siinayna laakiin deked saldhig annagu uma hayno. Sidaa markii khilaafku dhacay dowladda Ethiopia waxay u soo jeesatay in Eritrea tiraahdo deked aan ka qaadanaynaa, dhulkeena dib u soo ceshanaynaa, Eritrea iyo Ethiopia ku soo daraynaa. taasi markay dhacday xaaladdu muran iyo dagaal iyo foodo bilowday, hub aruursin oo bilowday. waxaa la leeyahay caalamka ayaa markaasi raalli ka ah in dowladda Eritrea la weeraro, dowladda Ethiopia inay qabsato wadamo badan oo caalam ka mid ah ayaa raalli ka ah. taasoo markaasi culays weyn loo arkay, laakiin taageero badan ay loo muujiyo wadamo ilaa 7 gaaraya oo wadamada Carbeed ah ayaa si toos u taageeraya dowladda markaasi Eritrea. Marka xiisadda halkaas markay marayso madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa la sheegay inuu dhexdhexaadinayo oo labada dhinac door dhexdhexaadin oo qaadan doono maadaama Ethiopia saaxiib leeyahay Eritrea saaxiib yahay. laakiin saaxiibtinimada hadda Eritrea waa si daciifaysaa. Marka hore si toos ay saaxiib u ahaayeen Siyaas Afwerki iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, laakiin markii Abiy Ahmed oo la saaxiibay oo Addis Ababa ugu tagay Muqdisho ku soo dhaweeyay ayuu hambareega jiitay Siyaas Afwerki asagoo sheegay inuusan ku qanacsanayn qaabka madaxweynaha Soomaaliya wax u maareynay ama inuu la saaxiibay cadowga Eritrea hoosta uu ka galay. sidaa daraadeed marka kala shaki ay soo kala dhexgalay dowladaha Eritrea iyo Soomaaliya. Hadda waxaa la leeyahay madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qaadanayaa door dhexdhexaadnimo oo markaasi uu doonayo inuu iskugu soo dhaweeyo Ethiopia iyo Eritrea. iskugu soo dhaweyn karaa marka ma Ethiopia bad ka tanaasuleyso mase Eritrea ogolaanaysa badeeda, sida la isugu soo dhaweyn karaa su'aal taagan waaye oo markaasi u baahan jawaab. sababtoo ah Ethiopia kama tanaasuleysa bad Eritrea badeeda ma ogola. marka sabab loogu dhexdhexaadin karo maanta oo labadaas dowlad la isugu keeni karo ma jirto. Ethiopia bad waan ka baxnay waa ilaa ma dhahay ilaa hadda wax ku celcelinayaan inay bad tagayaan. walo isbuuciyada u dambeysay markii saanada military dowladda Eritrea ay keentay xuduudaha ay aamustay Ethiopia oo qayladii boodboodka ay joojisay, haddana cabsi ayay markaasi xalid runay ku ooyaan, cabsi ayay markaasi dareentay. laakiin maalmihii hore habeen iyo maalin waxay dhigi jireen bad baan tagaynaa, waan soconaa, dekedda Casab aan qabsanaynaa, kan wixii hadda waa soo yaraadeen. marka xashiiq sidoo ku dhexaadin karo ay isweydiinayaan laba dowladood oo aan heshiis ahayn, bad isku haysto, dhul isku haysto, dhahay waan qabsanaynaa, qolo kalena nama qabsan karaan.
sidoo ku heshiisiinaya isagaa la weydiinaya oo arki doona wixii kasoo kordho koonfurta Soomaaliya haddaan tagno saanada military ugu tirada badnayd iyo ciidamada ugu tirada badnaa ee jiidaha hore dagaalka loo daabulay gaar ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada asluubta ciidamada booliiska ciidamada NISA kuwa militariga Soomaaliya dhammaan waxaa la suugay gobolka Shabeellaha Dhexe ciidamada ugu tirada badnaa way weeraan 30,000 oo ciidan ah ayaa la suugay Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan marka xaalad dagaalo aad u weyn ay halkaas laga dareemayaa dhaqaaqyo badan jiro duqeyntu waa socotaa xaaladdu cirka ay ku jirtaa marka dowladda Soomaaliya waxay leedahay guul ama geeri dhalinyarada la arkay iyagoo sii socdo guul ama geeri ku haydhahay waxaan tegaynaa meesha dagaalku ka socdo wax badan aan qaban doonaa oo markaan kadib leesma haysan doono marka Soomaaliya xaalad dagaalo aad u weyn gashay iyadoo wali bishii Ramadaan lagu jiro ayaa waxa leeyahay waa in lagu kala baxaa dagaalka AS iyo maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka Soomaaliya wixii ka soo kordha idana halkaasan waa idin ku soo gudbi doonaa insha Allah waxaan aadaynaa dhanka ay Somaliland waxay soo bandhigtay hub aad u tiro badan oo markaasi la yaab ku noqday dadka markaasi muddooyinka la soo dhaafay hub aruursi iyo diyaar garow inay jirtay saanad military u soo degtay waxayna sheegayaan saacadii la soo dhaafay in la kala bixi doono oo hubkaasi oo noqon doono kii lagu kala bixi lahaa sida ay sheegeen huwantii inay meel saari doonaan huwantii meel bay markaas aan saari doonaa meelo badan loo kala bixi doonaa la saacanood gacanteena soo gali doontaa dhulka maxaa la yiraahdaa nagala soo saaray dib aan xoreysan doonaa waxyaabo kale fara badan iyo warbaahinta iyo saanada military iyo hanjabaad isla socota ay soo dhigeen qaatimo naftigeeda ciidamo tiro badan iyo saanad military ay soo bandhigeen waxay leeyihiin annagu ceeri gaabo ayaan ku soconaa meel kale kuma socono meesha hadda noo muhiimka ah oo aan gacanta ku dhigeen waa ceeri gaabo marka xaalad isdiidan ayaa halkaas ka jirto dhaqaaqyo fara badan oo og iyo markaas boqorkeen iyo qorlugud ka jiro yeele waxaa la sheegay dagaal kooban inuu ka dhacay oo markaasi aan aad u badnayn laakiin maxaa la nimanka SSP ayaa markaasi rasaas isku fureen iyo kuwa SSC qaatumo dagaalkaasina muddo kooban oo socday waana lagu kala tagay inkastoo wax natiijo aan la kala gaarin dhimashada dhaawacna aysan badnayn marka iskaadgaadkii iyo dagaalkii iyo diyaar garowgii loo socdaa SSC qaatumo Somaliland wali waxaa hub aroorsiga wadaan Somaliland hubka ay soo hadda u soo degay waa hub aad u waaweyn oo taangiyada ay ka mid yihiin hubka culus oo ka mid yahay gaadiidka cusub ee kuwa cabdibilaash loo yaqaano ama qabaalka dadka qaar ay dhahan ayaa markaas u soo degay marka waxa ma malayn kartid xaaladdu meesha ay marayso ciidamada jiitaad sigisna duleedka magaalada Ceerigaabo lagu tababaraya waxa leeyahay ayagana waxay soo gabagabeyn doonaan dagaalka ay dib ugu laaban doonaan oo jiidaha hore ay tagi doonaan sida jiidali iyo dib qarax halkaas oo markaas leeyahay magaalada Ceerigaabo ayaa laga difaacaya xaaladdu marka ma sahlana idana wixii ka soo kordho insha Allah mar walba idin soo gudbi doonaa barnaamijka idinkana dan wixii xog adeeshaan commentiga nagu reebo iyo wixii fikirkiina aad qabtaan ba intaan barnaamijkan barnaamij kulmi doono xadilanahay fi amaanillah.